منير أحمد عقال مسؤولka uu madaxweyne cabdiraxmaan ciro maanta magacaabay. Muniir Axmed Cigaal waxa uu ka mid ahaa xisbiyahanadii wadani ee cabdiraxmaan ciro dhisayay tan iyo doorashadii 2017 oo uu ahaa madaxii warbaahinta ee ololaha. Markii cabdiraxmaan ciro lagaga guuleystay doorashadii hore waxa uu ka mid ahaa raggii aan ka dhaqaaqin dhinaciisa ee safka hore kaga jiray mucaaradnimadii xisbiga. xabsiga ayaa la dhigay dhowr jeer oo muddo ayuu u xidhnaa doorkiisii mucaaradnimo. Sidoo kale waxa uu ku dhaawacmay mudaharaadadii xisbiga wadani ku doonayay qabsoomidda doorashada. Doorashadii isku lamaanayd ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee qabsoontay 2021 waxa uu ahaa mas-uulkii keliya ee xisbiga ku jira ee ka soo jeeda bariga Burco ee labadiisii xildhibaan ka soo saaray xisbiga wadani. Xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo golaha wakiilada ka tirsan iyo maayir ku-xigeenka Burco Suldaan Jaamac Nuux oo ahaa ninkii labaad ee ugu codka badnaa xildhibaanadii Burco. Muniir Axmed Cigaal sidoo kale waxa uu ahaa shakhsigii suurtageliyay ee bilaabay heshiiskii isbahaysiga ee xisbiga ka iyo wadani ay doorashada isugu bahaysteen siduu goobta heshiiska ka sheegay madaxweyne cabdiraxmaan ciro. Dhinaca kale Muniir Axmed Cigaal waxa uu ahaa shakhsigii xiriirka u hayay madaxdii dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo iyo madaxweyne cabdiraxmaan ciro markii uu murashaxa ahaa, waxaana lagu tilmaamaa mas-uulkii ugu xidhiidhka badnaa ee deegaankiisa marka loo eego madaxdii xisbiga wadani. Xagga waxbarashada waxa uu Muniir Axmed Cigaal shahaadada MA-ga ku haystaa siyaasadda iyo xidhiidhada caalamiga ah oo uu ka diyaariyay dalka dibaddiisa. Waa saxafi muddo dheer ka mid ahaa warbaahintii Somaliland isaga oo ahaa wariyihii madaxweyne Axmed Siilaanyo ee safarada dibadda, sidoo kale ahaa mulkiilihii warbaahintii Somaliland Today oo ka koobnayd wargeyskii Hargeysa ka soo bixi jiray iyo shabakadii wararka ee somalilandtoday.com. waxaa la odhan karaa waxa uu ka mid yahay xubnaha kooban ee muddada dheer ahaa xisbiyahanada, kaasi oo waqti dheer garab iyo gaashaanba uu ahaa guusha uu gaadhay murashaxii uu dhisayay ee madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal ciro, iyadoo la filayo inuu noqon doono mas-uuliyiinta ugu dhow madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland.